Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelkayga Baladi Official. Haddii ay tahay marka ugu horeysa, fadlan subscribe inoo saar gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan fiidiyowyada aan soo gelinayno, lana wadaag asxaabtaada. Maanta waxaan idiin hayaa 10 faa'iido ee cabitaanka faraha badan laga helo. Kulligeen waan ognahay sida biyaha ay muhiim ugu yihiin nolosha, uguna faa'iido badan yihiin jirka. Qofka waxaa loo baahan yahay inuu cabo 7 ilaa 8 koob oo biyo ah maalintii si uu caafimaadkiisa u ilaashado. Laakiin waxaa dhici karta in aanan ogeyn cabista biyaha diirran, gaar ahaan subaxa hore, ay cudurro badan daawo u yihiin. Haddaba maanta waxaan idiin soo gudbinayaa 10 faa'iido ee cajiibka ah ee laga helo cabista biyaha diirran. Waa sida laga soo xigtay website-ka Poly Sky ee ka hadla arrimaha caafimaadka. 1. Brain Sinus sanka ayuu dejiyaa. Qiiqa ka soo baxaya biyaha diirran ayaa khafiifiya san-xiranka madax-wareerka, gaar ahaan dadka qaba sanboorka. 2. Shaqada habdhiska dheefshiidka oo hagaajiya. 3. Dareemayaasha jirka oo xasiliya. Dareemayaasha jirka ayaa ku xasila, gaar ahaan marka uu qofku xanuun ka dareemayo kala-goysyada. 4. Calool-ma-jirka ayuu u wanaagsan yahay. Marka aad koob biyo diirran aad cabto, waxa uu kaa garab siinayaa in calool-ma-jirka uu ka yaraado, calooshana waxa uu ku garab siinayaa inay saxarada bannaanka u soo saarto. 5. Miisaanka jirka ayaa lagu dhimaa. 6. Jirka ayaa sunta looga soo nadiifiyaa. Biyaha diirran waxa ay dhiirrigeliyaan jirka, sidaa darteed jirku si wanaagsan ayuu dibadda uga soo saarayaa dhidid fara badan oo bannaanka u saara sunta. 7. Waa xanuun baabi'iye dabiici ah. Biyaha kulul waxay dhiirrigeliyaan unugyada jirka dhidid fara badan u burqado, taas oo xubnaha u saamaxaysa inay nasasho dareemaan, waana arrinta keenaysa in nooc kasta oo xanuun ah oo uu ku hayo uu ka khafiifiyo. 8. Hurdo wanaagsan ayaa laga helaa. Haddii hurdo xumo ay ku hayso, waxaa fiican in aadan seexan ka hor inta aad cabto biyo diirran. Hurdo xasilloon oo degdeg ah ayaad ka helaysaa biyaha. 9. Daalka ayaa lagu yareeyaa. Haddii aad cadaadis badan aad ka dareemeyso shaqada iyo nolosha, waxaa lagaa rabaa oo kaliya in aad cabto biyo diirran si daalka aad uga yareyso jirka. 10. Jirka ayuu qallaylka ka ilaaliyaa. Marka aad cabto koob biyo oo diirran ah, waxa uu jirka ka helayaa qoyaan maalintii oo dhan, arrintaas oo ka ilaalinaysa mushkiladaha qallaylka ka dhasha ee uu ka mid yahay garaaca wadnaha, xasaasiga xilliga maalintii, daalka iyo madax xanuunka ee ku haya maalintaas waa ay kaa yaraanayaan haddii aad badiso cabista biyaha diirran. Fadlan, haddii aad ka heshay clip-kan, waxaan si naxariis ah kaaga codsanayaa in aad la wadaagto asxaabtaada aanan ogeynin faa'iidada biyaha ay leeyihiin. Waa Xasan Maxamed Sheekh oo idinka codsanaya inaad share gareysaan channelkayga.